subax wanaagsan subax la mid ah maxaa cusub akhbaarta ugu weyn ee aan ku hayo waa in wasaaraddeena caafimaadka ay qaban qaabinayso talaalka cudurka dabaysha 19 ilaa 23 Febraayo 2023 sidee loo qabanayaa ololahan waxa laga hirgelin doonaa gobolka Banaadir iyo dhammaan gobolada maamul goboleedyada iyo degmooyinkaba wuxuuna bilaabanayaa 19 ilaa 23 Febraayo 2023 ugu horeen wacyigeliyaasha ayaa booqan doona guri kasta isla markaana gaarsiin doona fariimaha wacyigelinta iyo maalmaha talaalka halka talaal bixiyaashana ay booqan doonaan guryaha xaafadaha xirooyinka barakacayaasha iyo daafaha gobolka Banaadir iyo gobolada kale ee dalka isla markaana siin doonaan talaalka ka hortaga cudurka dabaysha caruurta daadoodu ka bilaabato dhalashada ilaa 5 sano xasuusnow dhammaan caruurta ka yar 1 sano waxa loo sii wadi doonaa in loo dhameystiro talaalkooda joogtada ah sida jadwalkoodu yahay iyadoo la geynayo xarunta ugu dhow si looga hortago cudurka dabaysha inay u naafoobaan ama ay u dhintaan adeegan dhammaan waa lacag la'aan fariintan waxa idin soo gudbisay wasaaradda caafimaadka oo kaashanaysa hay'adda UNICEF